taariikhduna ay ku beegan tahay 23 bisha Maarso sanadka 2026 waa barnaamijkeeni koobaad barnaamijyada aynu maanta idiin soo gudbin doono haddii Allah awood u ka raali noqdo qodobada barnaamijka saaka idin kugu soo gudbinayo waxaa ka mid ah Iiraan oo xalay jilbaha aasatay iska caabin daranna muujisay kadib markii Mareykanka diyaarado aan hore loogu isticmaalin dagaalkan uu xalay soo qaatay uu isticmaalay isagoo weerar toos ah ku soo qaaday marin biyoodka Hormuz haddaba maxaa ka dhacay xalay Hormuz warbixin faahfaahsan oo ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ayaynu barnaamijka ku faahfaahineynaa weeraradii xalay la isdhaafsaday dhinacyada Tahraan oo la duqeeyay iyo Israa'iil oo dhowr goobood gantaalaha Iiraan ay ku dhaceen Hezbollah oo iyaduna war cusub soo saartay Mareykanka iyo Ingiriiska oo iyaguna ka wada hadlay sidii iskaashi ay uga yeelan lahaayeen furitaanka macbarka meesha la yiraahdo Mudayiq Hormuz ama marin biyoodka Hormuz haddaba qodobadaas aynu barnaamijkeena ugu horeeya saakay barnaamijyada aynu aan iisoo gudbin doono maanta aanu ku soo qaadanaynaa intaan ku jirno warar cusub hadday soo kordhaan waan idin la socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada magaalada Tahraan ee caasimadda dalka Iiraan haddaba waxay sheegayaan ciidanka Israa'iiliyiinta in mawjado cusub oo ballaaran oo weerar ah ay ka fuliyeen deegaanka la yiraahdo goobaha kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalada Tahraan wakaalada wararka ee Faris ee dalka Iiraan laga leeyahay ayaa saaka sheegtay in 5 weerar lagu bartilmaameedsaday waqooyiga caasimadda Tahraan iyo bartamaha iyo dhanka bariga iyo galbeedka magaalada Tahraan marka xalay Iiraan weerar culus lagu qaaday waxaa la islahaa hal mashquuliyo lama kan habeenkii adeegtaan oo gantaalaha culus la soo baxaan marka ma la aamusiye marka aan idin tuso marka jawaabta Iiraan markiiba ay bixisay haddaba Iiraan waxay sheegaysaa in mawjado sawaariiqa oo ah mawjadii 75aad ee alwacdu saadiq ay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ku weerareen bartilmaameedyo ku yaala gudaha Israa'iil iyo saldhigyada Mareykanka ee gobolka waxaana la sheegay in lagu bartilmaameedsaday goobo muhiim ah oo markaa cusub oo militariga Mareykanka iyo kuwa Israa'iil ay leeyihiin haddaba warbaahinta Israa'iil ayaa waxay ku tilmaameen weeraradaasi gantaalaha Iiraan ahaa kuwa lagu tilmaameedsaday bartamaha Israa'iil iyo koonfurta waxaana la sheegay in qaar ka mid ah gantaalihii Iiraan laga hortagay oo markaa la iska caabiyay way qasaaraha marka ka dhashay muxuu yahay qasaaraha waxay leeyihiin Israa'iiliyiinta saaki 8 goobood ayay xalay gaartay gacanta Iiraan macnaha gantaalaha Iiraan 8 goobood ay ku dhaceen qaar iyaga ku dhacay qaar firirkooda ku dhacay marka ambalaski iyo hay-adihii gurmadka ilaa haddeer saaki waa loo wacaya meesha iyaduna masaa'iba ka dhacday haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay Israa'iiliyiintu waxay sheegayaan in marka firirka iyo gantaalaha Iiraan ay ku dhaceen 8 goobood oo Israa'iil ah sida uu sheegay telefishinka 14 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin wali waxaa soo baxaya wicitaano la wacayo hay-adaha gurmadka iyo ambalaaska si markaa dadka dhibaatadu ay soo gaartay ay u qaadaan 8 goobood waxay ku yaalaan bartamaha Israa'iil dhanka kale saakay jirrada la yiraahdo iyo dacood axranood ee Israa'iil ka soo baxda waxay sheegaysaa in burbur lixaad leh uu gaaray magaalada la yiraahdo Bitaax taasoo la sheegay inay ku taalo bariga Tel Aviv waxaana la sheegay halkaa inuu ku habsaday mid ka mid ah gantaalaha sida madaxyada waaweyn ee firira ee Iiraan ay leedahay dab xoog leh ayaa ka kacay deegaankaasi waxaana sidoo kale ay gaartay dhibaatadu deegaanada la yiraahdo Qulaaf Gaza ee ku dhow magaalada Gaza kadib markii halkaa la sheegay in gantaal Iiraan ah uu ku habsaday oo uu ku dhacay way marka iyaduna xaajadu halkaasay joogtaa wali weeraradii ayaan ku jirnaa sheekadii Hormuz ka dhacday xalay waa inoo soo socotaa haddaba marka waxaa jira isaguna
weeraro mid xisbullah ay qaaday iyo mid iiraan iyo xisbullah ay si wada jira u fuliyeen. haddaba wararkii ugu dambeeyay xisbullah waxay sheegeen inay weerar ku qaadeen ciidamo israa'iiliyiin oo ku sugnaa bariga deegaanka la yiraahdo al-Khiyaam, waxaana la sheegay in weeraradaasi loo isticmaalay diyaarado daroon ah oo ah kuwa isqarxinaya, waxaana lagu qarxiyay goobihii ay ciidanka Israa'iil ka joogeen koonfurta Lubnaan. dhanka kale weeraro gantaalo oo markaa ay si wada jira u fuliyeen Iiraan iyo xisbullah ayaa lagu qaaday saacadihii la soo dhaafay Israa'iil, waxaana la sheegay in la bartilmaameedsaday deegaano ku yaala dhanka waqooyiga Israa'iil ayaa iyaguna weerarada lagu qaaday. waaye intaas marka waa gudaha Israa'iil iyo Iiraan wixii ka dhacay. carabtii xalay iyagu xoogaa ma hurdeen, may ha sheegin hurda ma jirto. haddaba aanad tuso iyaguna wararkii ugu dambeeyay Iiraan waxay ku dhigtay khaliijka Kuwait, Sacuudiga iyo Imaaraadka xalay waxay u ahayd habeen kale oo ay iska difaacayeen gantaalo iyo drones ka imaanayay dhanka Iiraan. warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay Kuwait iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka aroortii saakay oo Isniina waxay sheegeen in markaa sawaariiq plastiga iyo waliba diyaarado drone ah oo ka imanayay Iiraan ay ka hortagayeen oo ay la dagaalamayeen. qaar ka mid ah ayaa la sheegay firirkoodu inuu ku dhacay magaalooyin kala duwan. Abu Dhabi waxay sheegtay in hal qof uu dhibaato ka soo gaartay oo Hindiya u dhashay kadib markii firir uu ku dhacay mid ka mid ah dhismayaasha magaalada Abu Dhabi. waaye xalay horta midaasaa dhacday. habeen aan la isu naxariisanayn iyo maalin aan la isu naxariisanayn male. dagaalku markuu waa dagaal aan caadi ahayna meesha ka socda. warka marka ugu muhiimsan saakan galaynaa warka saakay soo dhacay. telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay diyaarado Mareykanku leeyahay ayaa markii ugu horeysay dagaalkan ka qayb qaatay oo 22 maalmood maray. diyaaradahan asal ahaan waxaa loogu talagalay infantry-ga inay caawiyaan. u fiirsada meesha waxa ka soo socda idin sheega maalmahan oo dhan maxaa la lahaa ciidamo lugta ahaa la rabaa in la geeyo jasiiradaha Iiraan si loo furo Hormuz, Iiraan cadaadis loo saaro. 2,000 askari oo Mareykan bariga dhexe aadaysa la lahaa. Iiraan waxay leedahay soo socda. xalay marka waxaa tijaabo sameeyay diyaaradihii loogu talagalay ciidamadaas lugta inay la socdaan. marka diyaarado joog hoos ku duulaya mid helicopter iyo mid kale ayaa maartay idin sheegi doona sawirradooda waa tusi doona. Al Jazeera warbixin ka diyaarisay marka diyaaradahaas xalay waxay soo hujum ku soo qaadeen ciidanka ilaalada kacaanka oo barnaamijkii xalay khariidadan aan ka sharaxaynay oo jasiiradihii badda ku daadsanaa waa aragteen. intaan daawan barnaamijkaas xalay muhiim u ahaa waa barnaamijkii saddexaad marka inaad daawataan. marka jasiiradahaas meesha ku yaalay ayay diyaaradahan soo weerareen iyagoo ka soo kacaya waxa la helicopterada maartay diyaaradaha maartay maraakiibta diyaaradaha Mareykanka iyo waxa kale ka soo kacayaan. inkastoo wararka qaar leeyihiin dalalkan khaliijka laftirkooda saldhigyo ku yaala ayay ka soo kaceen. laakiin maxaa dhacay waxay rabeen inay tijaabiyaan awoodda ciidankan in jasiiradahaas la geyn karo askar iyo inaan la geyn karin. laakiin xalay suxun ayaa halkaa la isugu dagaalay. diyaaradaha marka laba nooc ay ahaayeen oo weerar ka soo qaaday. haddaba markaan idin tuso warbixin faahfaahsan oo saakin laga qoray. haddaba waxaa la sheegayaa maxay ka dhigan tahay diyaaradaha inay dagaalka galeen nooca la yiraahdo A10 iyo nooca kale helicopterka la yiraahdo Apache inay saaxada dagaalka Iiraan ay ku soo biireen xalay oo meesha ay ka dagaalameen. haddaba waxaa la sheegay inay furiyeen diyaaradaha A10 iyo diyaaradda la yiraahdo Apache ee Mareykanku ay leeyihiin weeraradoodii ugu horeeyay howlgalka military iyagoo weerarada ku qaaday xeebaha koonfurta Iiraan. haddaba waxaana la sheegay in ay ujeedadoodu ahayd ciidanka waardiyeynaya Hormuz inay markaa weeraro ku qaadaan. haddaba waxaa la sheegay in xaaladdu ay sii kululaanayso. warbixinada Al Jazeera ay helayso waxay sheegaysaa diyaaradahan aasaaskoodu ama waxa loogu talagalay inay taageeraan howlgallada dhinaca dhulka ah. waxaana la sheegay inay furiyaan weeraro
maaragtay ay hubaan waxay la dagaalamaan taangiyada, waxay sidoo kale la dagaalamaan doomaha iyo ciidamada dhufaysyada ku jira ayaa loogu talagalay maadaama joog hoos ay ku duulayaan. diyaaradda la yidhaahdo A-10 oo ah diyaarad weerar ah ayaa waxaa la sheegay inay taageero u fudiso ciidamada dhulka marka ay howlgal samaynayaan. waxaana la sheegay sidoo kale inay weerarto doomaha degdega u orda iyo maraakiibta dagaalka. waxaana xalay ay tijaabinayeen weerarkooda masaafada ay ka soo ganayeen gantaalaha oo aada u fogeyd in markaa ay soo weerarayeen halkaas, iyadoo diyaaradda kale ee Apache iyaduna ay weerarka ku jirtay. marka tijaabaa la samaynayaa. ciidankan Hormuz jooga oo jasiiradahaas jooga ma iska celin karaan diyaaradahan? maxay haystaan horta? hala kasbeeyo, hala fiiriyo waxa ay haystaan. wax weyn maa meesha u yaala, ma wax yara u yaara? macalinka waan cabsiyaa dishay, waa soo mar sida loo lahaa wadnihii cadaaday bogta. halay marka waxaa leeyahay diyaaradihii iyagoo wareersanay soo laabteen. waxay ridi karaan ay rideen, markaasa iyaguna wixii lagu soo ridi karaa lagu soo riday. si fiicana laysu dab saaray. markaa kadib maxaa dhacay? marka kulan ayaa dhacay. telefoonkana waxaa ku wada hadlay ra-iisul wasaaraha ingiriiska iyo Trump, waxayna iska kaashanayeen sidii bal Hormuz Iiraan looga qabsan lahaa, si maraakiibta loo fasaxo oo isu socodku uu u furmo. marka waxaana hanjabaado hawada isu mariyay saacadihii lasoo dhaafay Trump iyo wasiirka arrimaha dibadda Iiraan. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan wuxuu yidhi waxa naga cunaysaan male, waxaan 48 saaca la gabgabaysid waa u qabtay aan leedahay, waxba nagama qaadi kartid, meesha ku dhufato meesheeda ku dhufanayna. marka sheekadaas iyaduna halkaasay maraysaa. haddaba warar kale oo cuskeena koobaad waa barnaamijkeennii subaxnimo, qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka aynu maraynaa. haddaba qaybtan ugu dambaysa barnaamijka waxaan idinkugu hayaa warbixin cusub oo goordhow soo baxday oo la leeyahay madaxweynaha Mareykanka ayaa waxaa lagu casuumay Israa'iil. Israa'iil waxay casuumaysaa bisha Abriil, waa bisha soo socota. bishan hadda 23 markay dhamaato bisha kale ku xigta bartamaheeda Abriil markii la gaaro ayaa waxaa lagu casuumayaa. Trump soo baxay wuxuu imaanayaa Israa'iil, waa la xafladeynayaa. maxaa lagu xafladeynayaa? sidii loo galay Iiraan, sida loo jabiyay, sida isu dhiibtay. kadibna hadiyada ugu sareysa ama bilada ugu sareysa Israa'iil ayaa la guddoonsiinayaa Trump. nimanka kaartay dhigteen, ilaahay tiisana meelay taalaa. Iiraan inay ka takhalusayaan ilaa bisha Abriil bartamaheeda iska dhaadhicinayaan. marka ninka television laga leeyahay Israa'iil wuxuu weydiiyay Trump, wuxuu yiri qorshahaasa meesha yaala Israa'iil gudaheeda waa lagu diyaariyay ilaa bisha Abriil 15keeda inaan nimankan ku soo kala baxdid, waxa rabtid ku rid, nimankan naga aamusi. kadibna bilada ugu sareysa Israa'iil ay bixisaa lagu siinaya. ma aadaysa? waa aadayaa weeyr, maxaa aadi waay? nimanka fili kala u daaraba, nimanka way qalqaalinayaan moogtahay. ninka Trump waxay leeyihiin bilada waxa lagu siinaa nimankan inaa cuntay, ayatullahooda cuntay, isdhiibeen. macnaha ninkan basbaasa la soo mariyay, waxaa leeyahay wax alla waxa hayso ku rid meesha. iyagu nafta haysa laftirkooda dagaalkan inuu ka joogsan. magaalooyin dhan kaamila la cunay maqlaysa Israa'iil, habeen walba jugtaas iyo maalin walba la isku haya, dadkoodii waa qeylinayaan. marka waxay rabaan ninkan wuxuu ku riday inta ku rido sheekada la soo gabagabeeyo, aqligooda ka warraba. sheeko waa la meesha ka socota. haddaba marka aad tuso Trump waxaa la sheegay inuu ogol yahay booqashada Israa'iil bisha soo socota, isagoo ka jawaabayay Donald Trump su'aal ay weydiiyeen wariyaal ka socday telefishinka la yiraahdo 14 ee Israa'iil laga leeyahay. waxaa la weydiiyay inuu tagayo Israa'iil bisha Abriil ee soo socota si uu u gudoomo jaa'isada ugu sareysa Israa'iil. waxaana uu sheegay nacam waa tagayaa uu yiri. ninka marka nimankan meel ugu xiran yahay waxay rabaan wax walba geli meeshan, wixii ku gala aad ku dhufo meeshan. ingiriis u soo kaxayso, cid kasta u soo kaxayso. nimankan ilaa Abriil annaga ma adkaysan karna, way naftaana haysa. nimankan naga soo afjir, kadibna waxaan ku siinaynaa bilada ku siinaynaa. cunug yaroo kala la ciyaarsiinaa oday. marka sheekadaas halkaas ay mareen. nimankan kaarta u degsan ilaa Abriil bartankeeda in waxaan la iska soo gabagabaynayo
إيران waxay leedahay wallahi se ka dhicin wax badan madax badan waa qalan lahayd meeshan waa la soo midiya afaysanaya barnaamijkaygii ugu horeeyay subaxnimo saakay oo isniina waa naga intaa ku xirnaada mar walba barnaamijyadeena xaqaa'iqa ku salaysan inagoo mar walba idin la wadaagna macluumaadka iyo wararka soo kordha oo markaa aanu ka soo gudbino hay-adaha warbaahinta caalamka like garay oo share garay haddaad cusub tahayna ha iloobin subscribe inaad ka samaysato channelkeena si aad u hesho xogaha iyo macluumaadkan muhiimka intaan mar kale kulmayno nabadgelyo